abaarashantii galabnimo ee maanta debley hubaysan oo ka tirsan kooxda shabaab ayaa weerar ku bilowday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxay ku qaadeen hoteelka Elite oo ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho kaas oo xilligu weerarka dhacay ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin dawladeed iyo dad badan oo shacab ah kadib qaraxa debley hubaysan oo gaaraya ilaa 4 ruux ayaa gudaha u galay hoteelka waxaana uu dagaal dhex maray iyaga iyo ilaalada hoteelka intii ka badbaaday qaraxa dagaalkaas oo ilaa hadda ka soconaya gudaha hoteelka inkastoo markii dambe ay si gurmada hoteelka u tageen ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska weerarka waxa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac badan oo inta ugu badan wax uu sababay qaraxa koobaad oo lagu dhuftay derbiga hoteelka xilli barxadda hoteelka ay dad badan ay fadhiyeen dadka la ogyahay ee ilaa hadda weerarkaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa cabdirasaaq cabdulaahi cabdi oo ahaa agaasimihii xiriirka gobollada ee wasaaradda warfaafinta daahir cali oo isna ahaa madaxa qaybta ka hortagga askaraynta carruurta ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo xubno kale oo badan dadka weerarkaasi ku dhaawacmay iyana waxaa ka mid ah wasiirkii howlaha guud ee Galmudug Axmed Washington sawirqaade Maxamed Caraay oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta Soomaaliya iyo fanaanada Faisabella oo iyadana ka tirsan kooxda Heegan ee ciidanka booliiska tirada dhaawacyada ilaa hadda la xaqiijiyay waa 24 ruux inkastoo tiradu intaas ay ka badan tahay markii uu qaraxu dhacay kadib jawiga goobta sidan ayuu ahaa قفتا نجي توسيه وريت توسيه نجي توسي وربركا كذا نجي توسي وريت توسيه بيتام بلاس لو خان الله يا دوا بلاس لو خان الله يا استدانه حاسدني مو سان ومد تبع يا بلاس بلاس ملا متولى وحقنا ولا تبكي كوم لا جي في بروح مرمر لمرة فتحت لمرة بس تبكي وانا العالم hadda wararka aynu ka helayno hoteelka la weeraray waxa ay sheegayaan in meydad badan oo hor leh hoteelka laga soo saaray iyada oo gaadiidka gurmadka degdega iyo saraakiisha caafimaadkuba ay wili wadaan la tacaalida dadka qaba dhaawacyada iyo daabulida meydadka sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa iyaguna wili wada u gurmashada dadka ku go'doonsan gudaha hoteelka waxaana ay gudaha hoteelka ka soo badbaadiyeen ilaa dhowr ruux oo ku jiro milkiilihii hoteelka xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur qaar kamida dadkii la soo badbaadiyay waxa ay sheegeen in gudaha hoteelka gaar ahaan qaybta sare ay wili saaran yihiin dad badan oo shacab ah iyadoo halkaasi sidoo kale ay ku sugan yihiin ilaalada hoteelka oo dadka ka badbaadinaya debleyda weerartay hoteelka qof kamida dadkii la soo badbaadiyay ayaa isna nala hadlay الحمد لله ماشي خسارة وحنا فيلين إننا كدعي الحمد لله دنا وكل إنتين دنا كوباباي دنا ولي جوده كجيران دنا ويسوبت بعدين هلو سود عيادة هاي أنت اللي سوبت بعدين هذا كوارت اللي مشي دوا ما لقي ياسك روح عركي على ليو على الحمام ماشي تعالوا دت جو تعالي إنه قرحة ماشي لو رفتي كلي دنا وسوق على المركب ماشي وسوق أركي دونتين كله ماشي واحد كدعي واحد قياس كرمها أو ما سنتين هذا اللي سوبت بعدين وضربت هذا تدبع تسانكنا shaqaalaha waa nabad qabaan intooda qaarna way dhinteen meesha ay yaalaan xaaladdu wali waa ay kacsan tahay faahfaahin dhabana lagama bixin karo waxa ka jira gudaha hoteelka 4 nin ee weerartay hoteelka ayaa la sheegay in laba kamida ay toogteen ciidamada ammaanka halka laba kalena ay wali ka dagaalamayaan gudaha hoteelka hadda afaafka hore hoteelka waxa ku sugan wariyaheena Mawlid Xaaji Cabdi Mawlid soo dhawow waxa faahfaahin naga siisaa hadda xaaladdu waa sidee هذا هو ما استمتعي سداد أديكو شيكتي حب كسو قررتي مدرسو أو إنتا سيدر قلبتا اللي أبارو قلبنا مدي مانتا هاي كوعوه بيسان وعيدوه قلن هوتيل كهلايت halka soo dad badan ay ku jireen hadda waxaan kugu firdin karaa in wadadaasi isla markaana hadda uu dagaal ka socdo liifa saaran sida ay sheegayaan ciidamada booliiska halkaas ku sugan marka xaaladdu waa ay qasan tahay weli rasaasa socoto oo ciidamada waxaa kaloo jira in dhaawacyadu la sheegayo inay ka badan tahay 28 qof dhimashadan 15 la sheegayo wayna ka sii badan kartaa biyo meesha yiraahdo oo u dhow hotelka Elite meedad door ayaa yaala oo halkaasi weli la raadinayo eheladooda teleefanadooda inta badan dadka ay ku jawaabayaan anigu ay indhahaygu qabteen oo aan arkay
xilligaan goobta tegayay maqribadii qaar ka mid a shaqaalaha hoteelka Elite oo iyagoo cagamaran ka soo baxay hoteelka islamarkaana ay wadeen gaadiidka gurmadka degdega ee ambalaasta kuwaasoo gurmad loo fidinayay qaar ka mid a hadda ku jiraan sida la sheegayo gudaha weli gurmada socdo rasaasna way socotaa xaaladdu way iska cakiran tahay marka wixii ku soo kordho dhegeystayaasheena iyagaa noqon doona kuwa ugu horeeya ee xogta hela insha allah kooxda al-shabaab ayaa sheegatay weerarkan waxaana ay sheegeen in hoteelka Elite ay weerareen kaas uu leeyahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya waxaana ay sheegeen inay ku dileen mas'uuliyiin dawladeed inkastoo dad badan oo shacab ah ay shabaab ku dileen